Assalaamu calaykum. Waddan walba oo dunida ku yaala wax ayuu ku fiican yahay ama wax ayuu ku xun yahay. Waxaa fiidiyogan kusoo qaadan doonaa qaar ka mid ah dalalka dunida iyo mid walba waxa uu ku wanaagsan yahay. Halka waddamo kale ee soo haray aan kusoo qaadanay qaybtii hore. Haddii aadan daawan qaybta hore waxaan soo dhigi doonaa description-ka ama qaybta hore ee fiidiyowga. Kusoo dhawaada qaybtii labaad ee muxuu waddan kasta ku wanaagsan yahay. Algeria waa waddanka ugu weyn dunida ee dhulkiisu biyaha ka yihiin eber boqolkiiba. Andorra waa waddanka ugu dheer marka laga hadlayo qiyaasitaanka nolosha qofka caadiga ah iyadoo gaaraysa 81.5 sano. Angola waa waddanka ugu dhimashada badan dhallaanka iyadoo 1,000 carruur ee dhalata 96 ka mid ah ay dhintaan. Antigua Barbuda waa waddanka ugu yar xagga inuu qof isdilo adduunka oo dhan, waana waddanka keliya ee ilaa hadda la soo gudbin hal isdilid kasoo bilaabata sanadkii 2015. Argentina waa waddanka loogu cunitaanka badan yahay ee dunida marka loo fiiriyo tirada dadka. Qofka caadiga ah ee Argentineska ah waxa uu cunaa 65.2 kiilo sanadkii. Australia waa waddanka ugu badan ee ka dhacaan weerarka ay soo qaadaan libaax badeedka dilaaga ah, waxaana la soo wargeliyey inuu dhacay 259 weerar laga soo bilaabo sanadii 1900. Azerbaijan waa waddanka ugu badan ee ku yaalaan falkaanada dhiiqada ama dhoobada ah, waxaana ku yaala kalabar inta ku taala dunida oo dhan. Bahamas waa waddanka ugu yar xagga canshuurta ganacsiga laga qaado, waana eber boqolkiiba. Bahrain sidoo kale waddankan waa waddanka ugu yar ee canshuur laga qaado qofka, waana eber boqolkiiba. Bangladesh waa waddanka ugu badan ee ku yaalaan webiyo, waxaana ku yaala 700 oo webi. Belgium waa waddanka ugu badan ee canshuur laga qaado qofka, waana 64 boqolkiiba. Bhutan 80 boqolkiiba dadka ku nool waa beeraley, taa oo ka dhigaysa waddanka ugu badan ee dadkiisu beeraley yihiin adduunka oo dhan. Bosnia-Herzegovina waa waddanka ugu badan ee ku duugan yihiin miinooyinka dhulka, cabir gaaraya 152 kilomitir square. Botswana waa waddanka ugu badan ee soo saara diamond-ka. Brunei waa waddanka ugu yar ee lagu leeyahay deynta guud. Bulgaria waa waddanka ugu badan ee soo saara saliidda ubaxa laga sameeyo ee rose oil. Cameroon waa waddanka ugu badan ee xagga canshuurta ganacsiga laga qaado, waana 68.5 boqolkiiba. Republic of Congo waa waddanka loogu isticmaalka yar yahay korontada adduunka oo dhan. Côte d'Ivoire ama Ivory Coast waa waddanka ugu soo saarka badan ee kookaha oo laga sameeyo shukulaatada, iyadoo soo saarta 3 meelood meel adduunka oo dhan. Croatia waa waddanka hoggaanka u haya qalliinka kelyaha iyo abuuristoodaba. Cuba waa waddanka ugu guuleysiga badan koobka adduunka ee baseball-ka, iyadoo haysata 25 bilood oo dahab ah. Eritrea waa waddanka ugu badan ee carruurtu ka shaqeeyaan. Gambia waa waddanka ugu militariga yar ee adduunka oo dhan. Guinea waa waddanka ugu kaydka badan ee aluminium-ka. Indonesia waa waddanka dadkiisu sida caadiga ah yihiin dadka ugu gaagaaban adduunka oo dhan. Ragga dhererkoodu waa 5 feet halka dumarkuna yihiin 4 feet. Iran waa waddanka ugu badan ee caasimadaha iska bedela, tirada oo gaaraysa 32. Jamaica waa waddanka leh ninka ugu orodka badan adduunka, waana Usain Bolt. Kazakhstan waa waddanka loogu isticmaalka badan yahay cusbada adduunka oo dhan. Kenya waa waddanka ugu soo saarka badan shaaha madow. Kuwait waxay haystaan lacagta ugu qiimaha badan dunida. Halkii diinaar oo Kuwaiti ah wuxuu u dhigmaa $3.30. Latvia waa waddanka ugu badan ee dadkiisu wax akhrin karaan. 99.9 boqolkiiba dadka Latviyaanka ah waxbay akhrin karaan. Lubnaan waa waddanka ugu badan ee joogaan qaxooti adduunka oo dhan, taa oo ka dhigaysa in 5 qof oo muwaadiniin ah uu ku jiro 1 qof oo qaxooti ah. Lesotho waa waddanka ugu badan ee korontadiisa ka soo saara tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Liechtenstein waa waddanka keliya ee la kireyn karo qiimo gaaraya $70,000 habeenkii. Maxaad ku samayn lahayd
haddaad dowlad dhan kiraysato? Commentiga noogu reeb. intaas ayaan jeclahay inaan ku ekeeyo mawduuceena maanta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.